kulankan ay soo qabanqaabiyeen dalada isbahaysiga hay'adaha aan dawliga ahayn ee deegaanka Soomaalida oo ay ka soo qayb galeen ururada bulshada iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa saaka ka furmay magaalada Jigjiga. kulankan ay saaka wada yeesheen ururada bulshada ee ka dhaqdhaqaaqa deegaanka Soomaalida ayaa ahaa kulan wacyigelin kaasi oo lagaga hadlayay sidii loo sii xoojin lahaa wada shaqaynta iyo isku xidhka ka dhaxeeya ururada bulshada iyo hay'adaha dawladda. Maxamed Ismaaciil Maarayaha dalada isbahaysiga hay'adaha aan dawliga ahayn ee deegaanka Soomaalida oo la hadlay warbaahinta deegaanka ayaana faahfaahinaya kulankan. waxaan eegaynay maadaama muddo soo wadnay arrimaha bulshada iyo arrimaha rayidka iyo kor u qaadidooda wacyigelintooda tababar siinaynay maanta bal waxaan ka hadlaynay maadaama inta badan dawladda iyo dawladda iyo ururada arrimaha bulshada ka shaqeeya inta badan gaab baa u dhaxeeya marka ama waxba u dhaxeeyo ilaa hadda si fiican isuma gaaraan maadaama gaabkaasi jiro waxaan ugu talagalay bal maanta inaan dadka fahansiino waa maxay xiriirka aan la leenahay dawladda xisbiyada tartamaya oo kale iyo dadkan community-ga deegaanka Soomaalida shirku waxyaabaha xoog la saaray waxa kamid ah dadka in la fahansiiyo dawladda inaan xiriirkeena inaan adkeyno maadaama ay dawladdu iyadu hadda ay mandate u haysato deegaankeena Soomaalida inay ka shaqeyso waxaan kale xoog saaray dawladda laftigeeda dadka inaan fahansiino dadka qaar baa ka baqa dawladda laakiin meesha kaliya ee arrimaha ururada rayidka ay wax ku qaban karaan waxa weeye markay haystaan dawlad dhageysata xiriirkeeda uu fiican yahay dawladda oo kale xiriir ka dhaxeeya labadooda haddii tusaalahan oo kale dadka waxaan yana la hadlay maanta waxa kamid ahayd in waxa haddii aan doono dawladda wax sheegno oo kale xiriirkayga waa inuu wanaagsan yahay haddaan xiriirkayga wanaagsan meesha loo marin lahaa ma jirto waxyaabaha kale laga hadlay maanta waxa kamid ah dawladduna inay diyaar u tahay inay la shaqeyso ururada rayidka isla markaana ay roolkooda ay ka ciyaaraan isla markaana dawladdu ay u banayso wadadii ay hawlaha ku qaban lahaayeen waxa kale oo ka hadalay waxa weeye maanta aan shirkan u soo abaabulay dadka inaan u sheegno kaliya dawladdu annaga ma nihin xisbiye mucaarada ma nihin maadaama aan xisbi mucaarada aan ahayn inaan dawladda u sheegno annaga dhaliisha dawladda inaan daba galno ma laakiin waxa weeye meelaha muhiimka inaan qoraal ugu gudbino hoos ula hadallo dadka waxa ay tabanayaan aan u gudbino aan noqon dad mar walba dhaliil la taagan laakiin wax saxayaan. dhanka kale ka soo qaybgalayaashii kulankan ee ka kala socday ururada bulshada iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa iyaguna ka hadlay intii kulanku socday sida loo sii adkeyn karo xiriirka wada shaqaynta wanaagsan ee dawladda iyo ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada.